kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baaqiyartayna daawanaysaa halkani waa RTN kusoo dhawaada barnaamijka Horaarsan oo inta Ramadaanka ka dhiman hadii guul la saamaxo aad daawo doontaan hadaha iyo kale barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdilcasiis Barrow oo qodobada aan idin kugu hayo saaka xiisalana waxa kamid ah xiisada siyaasadeed ee dhinaca diblomaasiyadda u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya xagee bay maraysaa Soomaaliya oo warqado u soo qortay qaar kamid ah hay'adaha NGO-yada ah ee ku sugan Kenya ee la shaqeeya oo codsatay in aanay shir iyo seminaar dambe ugu qaban doonin halkaasi isla markaana ay u soo guuraan gudaha wadanka Soomaaliya dhinaca kale shir la filayo in hay'adda UN Habitat ay ku qabato Kenya ayay Soomaaliya sheegtay in aanay ka qayb galeen sida ay shaaciyeen qaar kamid ah wargeysyada dalkan oo warbixin dheer ka qoraya qaarkood waliba wargeyska The Daily Nation xaaladda siyaasadeed ee labada wadan ka dhaxoogan qodobada kale oo aad barnaamijka ku daawan doontaan hadii guul la saamaxo waxa kamid ah maamulka Hirshabelle fadhigiisu yahay magaalada Jowhar oo deeq raashin gaarsiiyay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo duleedka magaalada Jowhar saldhigyo kule waxay kula dardaarmeen in ay guul iyo gobonnimo u soo hooyaan Soomaaliya inta ururka al-shabaab la dagaalamayana aanay dib u soo jeesan warbixin dheer ayaad ku daawan doontaan barnaamijka baarlamaanka midowga Yurub ayaa doorashooyinkii la qabtay la soo gabagabeeyay waxaana dadka tartamayay kamid ahaa markii ugu horeysay taariikhda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yurub haystana sharciyadooda qaar kamid ah ayaa guul soo hooyay oo kuraasta baarlamaanka midowga Yurub fariisan doona warbixin ayaad ku daawan doontaan arrimahaas ku saabsan arrimihii habraaca doorashooyinka ee qaar kamid ah maamul goboleedyada si ba'an uga soo horjeesteen wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay in cid kasta oo tabasho qabta lala fariisanayo waa inoo goordhow qodobadaas iyo kuwa kale oo akhbaaraadka caalamka diblomaasiyadda dunida iyo sheekooyinkii ugu dambeeyaba geeska Afrika aad ku daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabasho wanaagsan qiyaartayna daawanaysaa wali waxaad la socotaan qaybihii hore ee barnaamijka wararka dunida iyo diblomaasiyadda caalamka ee Horaarsan si toos ah ayaad uga daawanaysaan telefishinka RTN studio-ha dhexayno ku leenahay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow aniga ayaana barnaamijka idin sheegaya sidaad la socoteen xiisada siyaasadeed ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ma ahayn mid hagaagsan tan iyo wixii ka dambeeyay markii Kenya ay qaatay tilaabooyin ay u muuqanayay in dawladda Soomaaliya ay si weyn uga hortimid maalmihii ugu dambeeyaba arrimaha sida weyn Soomaaliya uga carootay aad la socoteen waxa kamid ahaa markii qaar kamid ah fiisooyinkii dalku galka ahaa loo diiday mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo xubno matalaya golaha wasiirada ee Soomaaliya kuwaasi oo Nairobi uga qayb gali lahaa shir looga hadlayay arrimaha khilaafaadka dhinaca xuduudaha ka dhacay ee Kenya dawladda Kenya ayaa ku codsatay in dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinteedaasi ay soo qaataan dalku galka iyagoo ka codsanaya safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho Soomaaliya arrimahaasi waxay u noqdeen qaadawa aan fariir ku riday qaar kamid ah bulshada iyo siyaasiyiintii loo diidaba laakiin dhinaca kale Kenya ayaa talaabadaasi ka hor ku dhaqaaqday in diyaaradihii Soomaaliya kasoo doolaya waliba garoonka Aadan Cadde International Airport ee ku soo hakadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya arintaasi oo labada dal hore uga heshiiyeen isla markaana heshiis madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Muigai Kenyatta ay gaareen ba meesha looga saaray laakiin hadda Kenya ayaa dib u soo celinaysa arintaasi oo soo celisaba laakiin waxa loo maleynayaa in dhammaan arrimahaas oo dhan ay salka ku hayaan kiiska muranka badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ-da yaala laakiin mar kale ay Soomaaliya
qoraal arintaasi ay u muuqanaysa inay uga jawaabayso waxay u soo qortay hay'adaha maxalliga ah ee hay'adaha caalamka ee la shaqeeya Soomaaliya ee saldhigyada kula dalkan Kenya war ka soo baxay wasaaradaha qaar ayaa loogu sheegay hay'adaha in aanay wax tababar ah ugu qaban karin shaqaalahooda gudaha dalkan Kenya isla markaana aanay sidoo kale ugu yeeri karin kulamo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo lagu qabanayo jamhuuriyadda Kenya waxaa dhinaca kale loo sheegay in loo wareejiyay caasimadaha Uganda ee Kampala, Rwanda, Kigali, Djibouti, Ethiopia iyo Addis Ababa waxaana Soomaaliya sheegtay in hadda wixii ka dambeeyay hay'aduhu ay dhagan nugul oo jilicsan ay ku dhageystaan in go'aanadaasi ay meel mariyaan laakiin saaka wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaaladan caasimadda ee dalka Kenya ahna wargeysyada loogu akhris badan yahay dalkan ayaa war ka qoray sheekadaasi waxaana uu soo hadal qaaday arrimaha labada dhinac la xiriira waxa uu sheegay Soomaaliya ayaa qaadatay in mar dambe kulamo looga hadlayo masiirka dalka Soomaaliyeed aan lagu qaban karin magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya taasi oo ay uga jawaabayso baa la yiri go'aankii diidmada ahaa ee fiisooyinkii dalku galka ahaa loogu diiday mas'uuliyiin heerkoodu sareeyay ee ka socotay dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa u soo jeedisay hay'adaha NGO-yada ah ee Soomaaliya la shaqeeya in muddo hal bil ah gudahood ay ugu soo guuraan xarumahoodana ay ugu soo raraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka haddii ay doonayaan baaliyeyn ay la shaqeeyaan go'aankan ayaa imaanaya kadib markii maalmihii ugu dambeysaba dowladda Soomaaliya ay waday gadood baaliyeyn ay uga soo horjeedo dowladda Kenya tilaabooyinka ay qaadanaysay taasi oo la xiriirtay markii loo diiday mas'uuliyiin heerkoodu sareeya fiisihii dalku galka ahaa oo ay ka qayb galayeen kulan midowga Yurub uu soo qaban qaabiyo looga hadlayo xasaradaha ka dhaca xuduudaha dalalka taasi oo Kenya diiday in mas'uuliyiintaasi ay soo galaan gudaha isla markaana sheeg baasaboorradooda ama ay wateen warqado ay ku safrayeen oo ahaa kan diblomaasiyadda maalintii Axadda ayaa wasaaradda caafimaadka dalka Soomaaliya waxay warqad u soo qortay hay'adaha qaramada midoobay ee la shaqeeya iyo deeq-bixiyaasha waxaana ay ka codsatay in aanay mar dambe ku qaban kulan arrimaha Soomaaliya looga hadlayo dalkan Kenya sheekadan ayaa waxay noqotay mid xaaladda mar kale cirka u sii qaadaysa buu leeyahay wargeysku sidoo kale waxaa lagu sheegay sida wasaaraddu ay soo qortay Soomaaliya mar dambe mas'uuliyiintooda uma soo safrayaan Kenya gaar ahaan wasaaradda lamana aqbali karo inay ka soo qayb galaan qorshaha iyo shirarka soo socda seminaarada iyo tababarada lagu qabanayo magaalada Nairobi sidoo kale wadanka ayaa noqon karaysa meesha lagu qabanayo iyo goobaha kale sidaasi war uu soo qoray hay'adaha waxa ku sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Xaashi Cali go'aankan ayaa waxa uu imaanayaa buu leeyahay wargeyska iyadoo isbuuca in soo aadan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya uu ka qabsoomayo kulan heerkiisu sareeyo oo ay qabanayso hay'adda UN Habitat taasi oo ka dhacaya magaalada Nairobi kulankan ayaa waxa lagu wadaa inuu furo madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Kenyatta taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay fiirin kareen in Soomaaliya ay ka soo qayb galayso kulankaasi taasi oo iminkaba ay cadaysay wasaaradda caafimaadku inaanay u diyaarsaneen in ay ka soo qayb gasho kulankaasi haddii uu ka dhacayo magaalada Nairobi inkastoo aan Soomaaliya si rasmi ah u cadeyn in kulankaasi aanay ka soo qayb galeen haddana warka wasaaraddu ay soo saartay ayaa sidaas u muuqanaya hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee ka shaqeeya la shaqeeya Soomaaliya sida World Vision, Save the Children UK iyo Red Cross ayaa iyana waxa ay ku shaqeynayeen maalmihii ugu dambeeyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyagoo la shaqeynaya Soomaaliya badi waxa ay ahaayeen sababaha inta ugu shaqeynayeen baa lagu sheegay xaalad dhinaca nabadgelyada ah laakiin ilaa sanadkii la soo dhaafay hadda se waxa la qorsheynayaa ama dawladdu ay eegi doontaa baa la yiri sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkan xaaladda labada dhinac iyo dalalkan ayaa iminka u muuqanaya mid ay si kala fogaanayaan sababtuna waxa ay tahay arrimo la xiriira dhinacaasi iyo waliba muranka badda oo labada dhinac si weyn isugu hayaan wata qiyaarteena daawanaysa waxay ka soo baxay sheekadaasi wararka iyo barnaamijyada dambe ee telefishinka RTN ayaad ku daawanaysaan wali waxa noo soo socda
qodobo kale oo aad ku daawan doontaan barnaamijka wararka dunida iyo sheekooyinka diblomaasiyadda ee Horaarsan. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay ama ay soo bandhigtay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya uu yeelanayo. arrimahaasi waxaa ganafka ku dhuftay qaar ka mid ah hoggaanka maamul goboleedyada oo iyaga soo saarayay warbixino kala duwan oo ay arrintaasi uga hor imaanayaan. dowladaha sida maamul goboleedyada sida weyn uga hor yimi waxaa ka mid ahaa maamulka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo shalay war uu soo saaray si cad uga hor yimi oo sheegay in aanay loo qaateen ahayn hadalka ka soo baxay wasaaradda. dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale war soo saaray quddiisa waxana uu ku sheegay in aanay aqbali karin waxyaabaha ay dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu ay ku dhaqaaqday. maamulkaasi galmudug ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa laba dhinac u kala jaban. dhinaca fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu hogaamiyo ayaa isagu sheegay in aanay marnaba qaadan karin hadalka ka soo baxay wasaaradda. laakiin fadhiga kale baarlamaanka hoggaankiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkii Axmed Xaashi Carabey oo iyaga ku sugan magaalada Cadaado ayaa waxay sheegeen in tallaabada wasaaraddu ay tahay mid la filan karay oo ay aqbalayaan isla markaana ay raacayaan. taasi oo muuqanaysa ama muujinaysa si kala fogaanshiyaha khilaafka galmudug u dhaxeeya mas'uuliyiinteeda. haddaba maamulkaasi Jubbaland ayaa wasiirka arrimaha gudaha Darwish war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin arrimahaasi isagoo saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi ee ku meel gaarka ah isla markaana xarunta gobolka ku yaala koonfurta Soomaaliya ee Jubbada Hoose. maanta oo ay tahay 26 bishii shanaad 2019 waxaan rabaa inaan halkan ka sii daayo war saxaafadeed aan daba joogo war saxaafadeed habraaca oo xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka kaas oo la xiriiray habka habraaca doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ama dowlad goboleedyada. sidaa darteed waxaan ku bilaabayaa dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hanaan xor iyo xalaal ah ujeedaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubbaland uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. haddaba qodobada 142 ama 142aad 120aad iyo 120aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka waxay si cad u qeexayaan xuquuqda dowlad goboleedyada sida hoos ku qoran. qodobka 142aad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka jira Soomaaliya ilaa inta la gaarayo goorta dhammaan dastuurka dowladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira ka hor inta aanan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa in ay la tashadaan marka la qaadanayo go-aan la xiriira nidaamka federaalka iyo qaabka nabadgelyada. qodobka 120aad hay'adaha dawliga xubinta ka ah hay'adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta
ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada. qodobka 120aad mabaadi'da dastuuriga ah mabdi'iyan waa in la iswaafajiyaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay caddaynaysaa in ay u madax bannaan yihiin xallinta inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland. arrintaas waxa u xil saaran guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka asagoo raacaya qodobka 29aad ee dastuurka Jubbaland iyo qodobka 67aad farqadiisa afraad iyo habraaca doorashooyinka ee ku cad xeerka number 7 ee lagu dhisay guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka go'an inay ilaaliso sharciga gaar ahaan sharciga khuseeya arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeed siyaasadeysan kaas oo tilmaamaya in ay doonayso in ay farageliso doorashooyinka Jubbaland sidii horey uga dhacday dowlad goboleedyada qaar ayna ka dhalatay khasaarooyin naf iyo maalba leh. mana jiro qodob awood u siinaya inay farageliso doorashooyinka dowlad goboleedyada. dowladda federaalka saxaafadeedkeeda waxay ku sheegtay in qodobka 46aad ee dastuurka qaranka uu tilmaamayo inay iyadu farageliso natiijada ayna si rasmi ah ugu dhawaaqdo. qodobkana sidaas ma qabo ee waxa uu sheegayaa in nidaamka matalaadda uu ahaado mid furan, in nidaamka matalaadda uu ahaado mid isku filan. arrintaasna waxay ku caddahay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. diyaar ayayna u tahay in ay ilaaliso dastuurka. sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay helaan shacabka Jubbaland xaqa matalaadda isku dheelitiran sida ku cad qodobka 22aad ee dastuurka Jubbaland. ugu dambeyntii dastuurka dowladda federaalka wuxuu si cad u sheegayaa qodobada kor ku xusan in dowlad goboleed kastana uu ku dhaqmo xuquuqda uu dastuurku siinayo. wixii cawaaqib xumo ah oo ay keento faragelintaas sharciga baalmarsan waxaa mas-uul ka noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya. markaan intaa leeyahay waxa weeye habraaca ay dowladda federaalka tilmaamayso dowladda Jubbaland horey bay u samaysay, mas-uuliyadeediina horey bay u samaysay, guddigii farsamada iyo doorashooyinka horey bay u samaysay, xulitaanka dhaqanka iyo sida xildhibaanada loo xoreeyo habraaceeday ku qeexday. maanu garan marka war-saxaafadeedka xala ka soo baxay wasaaradda wuxuu ku salaysan yahay. waxaanse anagu leenahay Soomaalida dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa dastuurkaas ayaanu rabnaa inaanu ku dhaqanno. waxaanu codsanaynaa dowladda federaalkuna inay ixtiraamto dastuurka dalka u degsan iyo midka dowlad goboleedyada u degsan. oo tahay aqoonteena daawanaysa intaasi aynu uga gudubno warkii ka soo baxay maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay koonfurta Soomaaliya.
haddaba arrinta maamul goboleedyada qaarkood ay ka cawdeen waxaa si weyn uga hadlay wasaaradda amuraha gudaha ee federaalka ee dalka. wasiirka wasaaraddaasi ayaa sheegay Sabriya inuu u diyaarsan yahay wasaaraddiisuna ay aqbalayso cid kasta oo ka soo horjeeda ama tabasho ka keentay habraaci doorashooyinka inay la fariistaan oo ay la hadlaan. wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa sheegay inay la fadhiisan doonaan cid walba oo cabasho qabta ama ka qabta habraaca loo marayo doorashooyinka dowlad goboleedyada ay soo bandhigeen. waxa uu sheegay inaysan jirin qodobada habraaca ah mid cusub oo horey loogu dhaqmi jiray balse waxa ay soo bandhigeen ay tahay sidii bulshada loola wadaagi lahaa. waxa hadda cusub oo aan soo saarnay ma jiraan, waxaan go'aansanay inaan soo dhigno shacabka hortiisa nidaamkii awalba lagu dhaqmayay. ma jirto runtii hal qodobna allaha ka dhigay uu yiri qodobka 27 aan soo bandhignay qodobka cusub ayuu u sheegay Sabriya idaacadda codka Mareykanka laanteeda afka Soomaaliga xilli uu la hadlayay. waxa uu cadeeyay in wasaaraddiisu ay leedahay mas'uuliyadda guud ee ku saabsan dimuqraadiyeynta iyo federaalka dalka, isagoo mar uu ka hadlayay cabashada iyo diidmada ku timid maamul goboleedyada ka hadlayay. Sabriya ayaa waxa uu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha guud ahaan dalka dimuqraadiyeyntiisa iyo federaaleyntiisa mas'uuliyadooda guud inay tahay isla markaana iyaga iska leeyihiin. wasaaraddu kaalin bay ku leedahay dowlad goboleedkuna kaalin bay leeyihiin, mana ku faragelin doono kaalintooda ayuu yiri. isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay waxaanu u diyaarnahay in aanu kala fariisano cid kasta oo cabasho ka qabta habraaca aanu soo saarnay ee loo marayo doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka ayuu hadalkiisa ku soo daray ama ku sii daray wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya Sabriya isagoo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. dowlad goboleedka Galmudug, Hirshabelle iyo Jubbaland ayaa ka hor yimid habraaca doorashooyinka oo habeen hore soo bandhigtay wasaaradda amuraha gudaha, iyadoo habraaca lagu soo aadiyay waqti xasaasi ah oo doorashooyin ay galayaan dowlad goboleedyada qaar oo ay ugu horeyso maamul goboleedka Jubbaland ee fadhigiisu yahay koonfurta Soomaaliya. watahay markana haddii aynu aadno Hirshabelle, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee maamulkaasi ayaa deeq raashin oo afur iyo suxuur bay isugu jira gaarsiiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay fariisimo ka sameeysanaya qaybo ka mid ah duleedka magaalada Jowhar oo xarun u ah maamulka Hirshabelle ahna caasimada magaalada Jowhar ah oo noqonaysa gobolka Shabeellada Dhexe. haddaba qaar ka mid ah mas'uuliyiintii Hirshabelle ka socday ee gaaray fariisimaha ciidamada ayaa kula dardaarmay in ay muujiyaan adayg isla markaana ay al-shabaab kala dagaalamaan. waa sida hadalka u dhigeen deegaanada maamulkaasi uu gacanta ku hayay guud ahaanba Soomaaliya. mas'uuliyiinta deegaanadaasi gaaray ayaa u muuqanayay ama muujiyay garab istaag ay ciidamadaasi u sameynayeen xoogga dalka Soomaaliya. mas'uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo isaga horkacayay deeqdaasi la gaarsiiyo oo aan ahayn tii ugu horeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gaarsiiyaan. tani intii Ramadaanka uu socday waxaa muuqanayay Guudlaawe iyo mas'uuliyiinta maamulkaasi oo ay xubno ka yihiin Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka maamulkaasi inay qaarkood gaarayeen fariisimaha. haddaba ciidamadii halkaasi gaaray hadaladii loo jeediyay soo dhaweynta ahaa waxaa safarkaasi mas'uuliyiinta ku wehliyay wariyaha telefishinka RTN ee magaalada Jowhar Xamdi Dool Abuukar. warbixintan ayay ku soo dirtay magaalada Jowhar. waa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Hirshabelle oo kormeera fariisimo ay ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Hirshabelle ku leeyihiin deegaanka Qalimo ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana ay mas'uuliyiinta ciidamada ugu deeqeen deeq raashin iyo xoolo nool. sida aad had iyo habeen nooga warqabtaan waxa aan ku noolnahay iyo sida aad noo qadarisaan waa in kaga hambalyeynaa. har iyo habeenna waxaan leenahay sida noola taagnaada si aan u xoreyno qaybaha naga dhiman ee qaybta 27aad ee Hirshabelle. mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Hirshabelle ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay xaqiijiyaan amniga wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho. iyakum minkum haddii laydinka helo
mi'atun saabiratun boqol qof oo sabraysa laakiin daacada ilaahay ku taagan jidka ilaahay haysa munkaraadka oo dhan ka dheeraanayso ilaahay cibaadaadkiisa gudanayso salaadii dukanayso soomayso boqol haddii idinka helo yaglibu mi'atayni laba boqol ay ka guulaysanayaan biidnillaah ilaahay idinkiisa ugu guulaysanayaan waxaan rajaynaa ilaahay idankiis inaysan booqashadan iyo deeqdan noqontii ugu dambeeyay ee aan sii wadi doono barbid istaag hadana baarlamaanka Hirshabelle aanana se garab istaagi doono haddii alla idin inta awoodeena gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwa Canab Axmed Ciise ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin ciidamada sugaya ammaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa uga mahadinaynaa inayna dhiiri galiyeen anagoo baarlamaankiya inayna soo raaceen anagoo baarlamaankiya inayna garab taagan yihiin si aan walaalaheen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan u niraano war waxba idinma wadne raalli ahaada imaashadiina iyo la hadalkiina ayaa wuxuu noo yahay wax qaali ah oo aan la malayn kareynin waxaan idin leeyahay xoogga dalka Soomaaliya wixii xoreeyay waxay ahaayeen xoogga dalka adinkuna waxaad tihiin xididkii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ma soo jeestayaalkaahow waxaan rabaa deeqda yaroon maanta halkaan keenay deeqda ku xigta inaan geeyo daynu bahashi meesha la yiraahdo gamboole iyo bariiraan rabaa inaan tago inaad iga ballan qaadaan gamboole iyo bariira inaan tagno oo aan inta taga laga soo noqonin aan degmooyinkaas dhex fariisano sida meeshaan aad u degtaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ciidamada kula dardaarmay in si wanaagsan ay u gutaan waajibaadka ka saaran sugidda amniga deegaanada Hirshabelle gaar ahaan wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho Hirshabelle haddii ilaahay raalli ka noqdo xoogga xoolo waxaan hayno waa idin la garab taaganahay saacad walba idin garab taagnaahayna qoragaan qaadanaynaa waxaan naga go'an deegaanadan in cadawga laga xoreeyo guud ahaan waxaan balyaan leenahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27 dadaalka ay ka wado Hirshabelle iyo sidii cadawgii ummadan dhibaatada ku hayay looga xoreeyay haddana duulaan loogu yahay meelaha ay ku dhiman yihiin oo fara ku tiriska waxaan leenahay hambalyo waan uga mahadcelinaynaa dadaalkooda insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo baarlamaankan abaabulka is abaabuleen Hirshabelle uga mahadcelinaynaa oo ay go'aansadeen inay maaragtay la garab istaago lana dhiirigeliyo ciidamada qalabka sida iyagana baarlamaanka Hirshabelle waa uga mahadcelinaynaa guud ahaan Hirshabelle waxaa ka go'an dalka in la xoreeyo in cadawga nabadiidka laga dulqaado aan naga go'an haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin qaybta 27 waxaan leenahay madaxdeeda iyo ciidamadeeda waa dadaasheen waa dhabar adeegteen go'aankaad qaadateena waa go'aan geesinimo leh qof waliba waqtigeeda ay baxeen laakiin idoo dadaalayso dalkeeda iyo dadkeeda xoreynayso cadawgan ku habsaday ka dulqaadayso qof waliba waqtigeeda haduu galay dhimanay waxaan leenahay waa dadaasheen waadna ku mahadsantihiin ballantaynuna waa dalka inta dhiman in laga xoreeyo cadawga haddii ilaahay raalli ka noqdo Xamdidool Aartiyan Jowhar aad ayaad u mahadsantahay Xamdidool Abuukar wariyaha telefishinka RTN ee magaalada Jowhar warbixintaasi nooga soo dirta halkaasi ciidamadan maanta ay booqdeen madaxda sare ee maamulka Hirshabelle ayaa waxay yihiin kuwa si weyn u sugaya ammaanka deegaanadaasi ay ku sugan yihiin laakiin waxay la dagaalamayaan ururka Al-Shabaab iyadoo qaybo kamid ah maamulka Hirshabelle waliba dhulka ugu ballaaran ee miyiga ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab magaalooyinka qaarna ay go'doon ku jiraan hase yeeshee maamulkaasi ayaa waayidii ugu dambeeyaba u ballan qaadaya bulshada iyo shacabkaba iyagoo gacan ka helaya dawladda dhexe inay doonayaan inay dib u xoreeyaan deegaanadaasi oo ay Al-Shabaab kala wareegaan akhirteena la socotay wali waxaad daawanaysaan barnaamijka Horaarsan oo si toos ah aad kala jaan qaadaysaan telefishinka RTN stuudiyaha dhexe ee magaalada Nairobi markaana haddii aan u tallaabo wararka dunida iyo akhbaaraadka caalamka waxaynu ka helayno doorashooyinkii midowga Yurub ee dhinaca baarlamaanka ayaa soo gabagaboobay waxna taariikhda markii ugu horeysay kuraastaasi isku soo sharaxay dhalinyaro aqoonyahan Soomaaliyeed oo baasaboorro kala duwan oo midowga Yurub haysta laakiin markii ugu horeysay ayaa haddana kuraastaasi qaarkood ku soo baxeen taasi oo calaamadeynaysa sida Soomaalida ay galaangal siyaasadeed ugu yeelanayaan wadamada galbeedka ee loo qaxay haddaba mid ka mid ah dhalinyaradii kuraastaasi u tartamay horena magaalada Sheffield ee dalkaasi Britain uga noqday maayarka ayaa ku guuleystay kursigii oo u tartamay waxaana ay bulshada Soomaaliyeed ka dhigaysaa iyo dadweyne farxad gelinaysa in boqolaal kale ay isku sharaxi karaan kuraas kala duwan oo ay shaki ka qabeen haddii ay u tartamaan inay heli karaan
taariikhda wiilkaasi dhalinyarada oo calaamadeeyay ayaa noqonaysa mid humaag u noqonaysa dhalinyaro fara badan inay hiigsadaan oo guulo fara badanna ay ka gaari karaan iyadoo guud ahaanba la leeyahay doorashooyinkii ayaa soo gabagaboobaya hadda warbixintan waxaa stuudiyaha dhexe inoogu diyaariyay oo ku eegaya guusha maajid wariye Cukaash Sheekh Maxamed oo xarunta dhexe ee magaalada Nairobi jooga maajid oo ah Soomaali marna soo noqday duqa magaalada Sheffield ee dalka Britain ayaa loo doortay in uu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midowga Yurub taasi oo ay soo dhaweeyeen dad isku jira Soomaali iyo ajnabi intaba wiilkan Soomaaliga ayaa horay taariikh uga sameeyay dalka Britain kadib markii uu diiday in madaxweynaha Mareykanka uu soo booqdo magaalada uu duqa ka ahaa ee Sheffield ee dalka Britain waxaana xilligaasi uu ahaa duq magaalo midka ugu da'da yar dalka Britain markii uu soo baxay warka ku saabsan guushiisa ayuu bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal uu uga mahad celinayo dadkii ka qayb qaatay doorashadiisa ee u suurtageliyay in uu ka mid noqdo baarlamaanka midowga Yurub maajid ayaa Ingiriiska tagay isaga oo 5 sano jir ah kadib markii uu isaga iyo qoyskiisa ay ka qaxeen magaalada Burco ee deegaanka Somaliland waxaana uu ka mid yahay siyaasiyiinta aadka u nacab isla markaana dhaleecaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump maajid waxaan ku dhashay Burco anigoo 5 jir baan imay magaaladan Sheffield baan soo koray xaganan wax ku dhigtay iskuulkayga xaganan ku dhigtay jaamacadana waxaan ku dhigtay magaalada Hull ee ku taala East Yorkshire markaasna Sheffield baan ku soo koray markaasna anigoo 4 sanadood agoon Green Party-ga join gareeyay xisbiga Green Party-ga markaasna alxamdulillah markaan Lord Mayor ka noqday markaas waxaan doonayaa dadka caawiya oo dadka ila degan dadka xaafadana community-gana especially waliba area and ward ka represent karaya magaala ward ka area ee Broom Hall Broomhill Sharvale Soomaalidu ugu badan yihiin Sheffield ba Soomaalida aad ugu badan yihiin laakiin markaas waxaan waxay fiican tahay dadkeena in qof Soomaali soo baxo because dadkeenu support karanaya ma igu jirin niyadeeda hadaan runta ku sheegay in Lord Mayor noqdo laakiin qadar Allah oo alxamdulillah siday noqotay alxamdulillah waxaweyaan marka ugu horeysa Park Lord Mayor waxaweyaan 2 roles kugu horeeya Lord Mayor waa ambassador-ka magaalada Sheffield Sheffield baan represent karaya locally nationally internationally kalabaadna waxaweyaan wax jira waxaan yiraahdaa full council meeting dadka councilorka doona Sheffield way isku imaadaan once a month bay isku imaadaan and markaas aniga meeting-ka chair karaya meeting-kaasna waxaa decisions kana sameynaya qof kasta ee Sheffield affect karanaya aad ma santahay Cukaash Sheekh Maxamed maajidna himilooyin kale iyo guulo horumar ayaan u rajaynaynaa ugu dambeyntiina boqorka dalka Saudi Arabia ayaa boqorka xifaaltanka xoogan uu kala dhaxeeyay wadankaasi Khadar Tamim bin Hamad Al Thani ku marti qaaday kulan ka dhacaya gudaha wadanka boqortooyada Sacuudiga labadan wadan ayaa waxa ka dhaxeeya xurguf xoogan oo dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaana guud ahaanba dalalka qaliishka ku yaala oo Sacuudiga hormuud u tahay ay xanibaad ku soo rogeen guud ahaanba dalkaasi iyo waliba dhaqdhaqaaqii ganacsi ee kala dhaxeeyay markii siyaasadda labada dhinac ay kala fogaatay boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa ku marti qaaday amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani shir degdeg ah oo golaha iskaashiga qaliishku ay ku yeelan doonaan 30 bishan magaalada barakeysan ee Makka Al Mukarrama wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa shaacisay in amiirka Qatar uu soo gaartay warqad casuumaad oo ka timi boqorka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka amuraha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ayaa ka gudoomay fariinta martiqaadka taasi oo uu keenay xogayaha guud ee golaha iskaashiga islaamka qaliishka Abdulatif bin Rashid Al Sayani oo ku sugan magaalada Doha shirkan degdega ah oo ay ka dhacaya magaalada Makka Al Mukarrama ayaa isugu jira laba qaybood oo ah shirka hogaamiyaasha Carabta iyo dalalka qaliishka kaasi oo looga hadlayo weerarada Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadeen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay weerareen maraakiibta shidaalka ah iyo doomihii shidaalka bishii June ee sanadkii 2017 Saudi Arabia, Egypt, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta
ayaa xiriirka u gooyay dalka qatar iyagoo kusoo rogay cunaqabatayn dhulka badda iyo cirka kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageeraan argagixisada inkastoo sheekooyinkaasi ay beenisay eedeymaha dowladda qatar warbixintaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaanba barnaamijkii howraarsan oo xilligan aad si toos ah saaxiibayaal uga daawanayseen telefishinka RTN studio-ha dhexe ee Nairobi anigoo Cabdilcasiis Barrow ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay Cukaasho Sheekh Maxamed ayaa isku soo dabariday barnaamijka dhinaca farsamada waxaan si wada jira ugu mahad celinayaa injineer Cabdiraxmaan Atore iyo injineer Mahad Yusuf oo barnaamijka gacan iga siiyay waxaan sidoo kale leeyahay mahadi ha ka gaarto Paolo dhinaca kaamirooyinka iga caawinaya tan iyo kulanti dambe intii barnaamijkan mid lamid ah aynu isku arki doono aan idigu dhaafa mid kamid ah qasiidooyinka Dandaawi ee yaa nuurul abjad daawasho wanaagsan صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب محمد أحمد الهدي النبي ومن بدينه دين أهل الشرك قد درس الرب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب يا السحعة على ود الحبيب العصا سجل للنار الهدى من نوره قبصا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك وأصاب صدى النبي ينوار أمرك وأصاب صدى النبي ينوار أمرك وأصاب رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب ورد الدار في وضع أنتهي أبدا عرضات بك يشبح من بنى وأصاب يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب صدى النبي ينوار أملك وأصاب وقل للآن للحمل مكي من مدر هواك بفؤاد السادة في قرصان يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملك وأصاب